socdaalkani ay ku yimaadeen magaalada Boorama mas'uuliyiinta uu hogaaminayo agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xasan Carwo ayaa waxay ujeedadiisu daaran tahay diyaar garowga miisaaniyadda 2019 iyo waxyaabihii uu qabsoomay sanadkan soo gabagabeysmay qiimeynta laamaha shaqaalaha ee bangiga dhexe magaaladani Boorama waxaana halkaasi ka warbixiyay ujeedka socdaalkani uu ku yimiday magaalada Boorama agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xasan Carwo isagoona tilmaamay inay ku doonaan gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaasina ay diyaar u yihiin sidii ay kor u qaadi lahaayeen hawlaha shaqo ee bangiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland qiimeeno kala hore wixii aan ugu talagalay say u baxday iyo sida ay soo gashay iyo tii soo socodka soo socda si aan u sameyn lahayn iyo qiimo lagu qiimeeyo shaqaalaha wixii u baahan in promotion la siiyo la dalacsiiyo wixii u baahan tababar wixii arrimaha noocaas ayaa horta aan u nimeeyo laamaha galbeedka aan mari doono soo dhameeyay gabiilay insha Allah waxaan u harsan sayl abaan u harsan hawlahan wadnaa waa hawlaha caynkaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha bangiga Boorame inay yihiin laamaha ugu hadalka yar ugu cabashada yar ugu shaqada badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhanka kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa sameysay qorituurka isku aadka kooxaha kubadda cagta heerka koowaad oo dhawaan lagu qaban doono garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama munaasabadani loogu qorituurayay oo ka dhacday runta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee magaaladani Boorama ayaa waxa ka soo qayb galay xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka isuduwayaal iyo dhalinyarada xiisaysa kubadda cagta waxaana halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal Xasan Saciid Daldal iyo mas'uuliyiintii kale ka soo qayb galay waxa aan ku guda jiraa ama aan dardar iyo maaragtay horumarin galinaynaa waa dhalinyarta walabaad waxaynu ka soo baxnay oo u qabanay seereebida doorkii dhaweyd waxaynu uga soo gudubnay inaan seereeyada u qabanno oo balankeenu ahaa seereeyadu 12 kooxood bay ahayd 12 kooxood ee meesha ka jiray waxa ku soo daray koox 12aad هذا كوبكي هورية اللي نفرأ وياه سيد دقمدنا إنه قبضه شركتنا إنه قبطان إن هذه العلسان بتجلي دي وأتكوّد الشقيسان. وحنقولنا تاجرياش يا يارتويد وين يتحكميان ماشى مرق قران كلا قلا كل يقولون ببدين إن شاء الله بدأ قلوا منا ما وضع بديان. كحيدهان وحندوننا إنه كوب كان وحوين وسوت شيء ده دلنيرت يجوبلك. تاسو ندوننا إنه رجدي ديله وقبل كان كورسو قاضو شاغي هore tartanka waxa qayb gali doona 12 naadi oo noqon doona 3 group in tartanku wuxuu bilaabmay 4 December haduu Ilaahay raaxo ugu dambeysaan mahad balaano soo jeedinaya shirkadda tartanka inaga maalgelin doonta shirkadda socdaalka bariga galbeed oo runteed ogtihiin ciyaaraha sida ugu heelan tahay Cabsalaan Saha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama